السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteena qiimaha badan ee ku xiran channelkeena. waxaan maanta muuqaalkan kaga hadli doonaa xigmadihii nolosheeda wax ka bedelay qaybtii labaad. haddii aad aragto waddo aan caqabad lahayn, waxa ay u badan tahay in aanay meelna ku hogaaminayn. Frank Caloric. ma noqon waxa aynu rabno in aynu noqonno innagoo iska joogno halkii hore, waxaa yidhi Max Debris. cudurdaaradu waa musmaarada loo isticmaalo in lagu dhiso aqalka guuldarrada, waxaa yidhi Bill Regin. mustaqbalkaagu waxa uu ku xidhan yahay waxa aad maanta samayso, waxaa yidhi Mahatma Gandhi. haddii aanad duuli karin orod, haddii aanad ordi karin lugee, haddii aanad lugayn karin gurguuro, balse si kasta oo aad samaysid ha joojin hore u socodka. qofka aanan lahayn geesinimo oo khataraha ku qaato weligii nolosha wax naf leh ma soo hoynaayo, waxaa yidhi Maxamed Cali. had iyo jeer waxa ay u muuqataa mid aan suuroobaynin ilaa la arko iyadoo la sameeyey. Nelson Mandela. uma boqo qofka fikira xataa haddii uu lumo, waayo xaqa dib ayuu ugu soo noqon, balse waxaan u baqaa qofka aan fikirin xitaa hadduu dhabbada saxda ah ku dhaco, waayo waxa uu ahaan doonaa sida bal dabayluhu wataan, waxaa yidhi Sheekh Maxamed Al-Qasaali. dhib ma lahan sida aayarka ah ee aad u socotid haddiiba aanad istaagaynin. ninka keliya aanan qalad samaynin weligii waa ninka aanan waxba tijaabinin. marka aan qof wax siiyo ee aan eego wejigooda, waa ay i farxad gelisaa, waxaa yidhi Jackie Chan. farxad waxaad heli kartaa marka aad awooddo inaad naftaada ka xorayso dhammaan waxyaabaha kaa jeedin kara farxadda, waxaa yidhi Saul Ballon. ka jawaab wicitaan kasta oo ruuxdaada raaligelinayso, waxaa yidhi Jalaaludiin Al-Ruumi.